نكاس حاجبها أنا ما هم يا نقدر ورنكاس نكي أميشة كلية بنا حبدي جلاتة هاي تركيا كعنتي ما هم يا حبد جلاتة أنا وحنا واي نك جلاتة ديسو جلاتوين كنا غني مكتبوته ورفع نوقل يا باكورة تفوسو قبله نصيب هالشيء نعلا شيء دقيقة إستاج عفقا بلوقل لي غرع وينا سيدك عادك قاضي حق ما استقعد حقه ورجلي مش ما مقلسا نكاس وأبو خلدمي وحوش لكو إيديني نمات إستاجي باكو كعي ولا على الرعلة هاو مقاحيد الرعلة كهاو أنا الرعلة كهاو حاجبها الرعلة كهاو ورفع نوقل يا باكورة تفوسو قبله نصيب هالشيء مقاحيدي يدي ما بدي مسكوسو جسدي هنا باشول بدنا دي aad ku nooshahay Yurub iyo Amerika waxaan kuugu bishaaraynaynaa in application-ka Payc uu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada warafka noo galiya baakoorada ku soo qabanay nasiib hash assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa salaamaya saa u jeedaan maqaaxidii baa fadhiya alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa soo nabad noqday muddo bil safar baan ku maqnaa qadaro aan ciyaar daawasho hawlo adduun u tagay iyo Sacuudiga ku soo cimraystay oo hawlo cibaado iyo aakhiradeeda dambe inaan u shaqaysto aan ugu maqnaa maanta waa soo nabad noqday guul baa safarkaas ku soo dhamaaday waana idinka warbixin doonaa insha Allah taala warbixin gaar oo tafatiran baan idin la wadaagi doonaa kumana soo khasaarine biladaas aan kala imi waa u jeedaan halkaas dawladda qadar aniga halkaas igu soo dhajisay ninkii Messi ahaa waa tii isaga surka wax loo galiyay iyo ciyaartooydii guuleystay aniga halkaas la igu soo dhajiyay waxayga oo ka biladaas aan kala imi warbixin baan insha Allah taala safarka idinka siin doonaa laakiin markaan soo laabtay waa xanuunsaday alxamdulillah hadda waa ladanahay oo aad u diiqay dhowr bari waa jiifay laakiin ma sha Allah hadda waa soo kacay وحوي هؤلاء iyo maqaaxidii in aad loo shidana waa inoo bilaaban doonaan iyagoo intii hore ka yar hufan yaa oday nisoo cibraystay buu noqday ma galgalan karo hadda wixii ka dambeeya arrimaha gadaal uga hadli doonaa waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrin yaab leh waxaan rabaa inaan ka bixiyo reaction buuqiisa wata nin xaajibahana la dhaho sanadka waxaa dhacday gabar Soomaaliyeed oo laanka la eg oo sharaf iyo karaamo iyo qurux iyo ciso ilaahay u dhameeyay baa Turkiga tagtay gabadhaasi Mareykan bay ka tagtay sida la sheegay ka bacdi nin celebrity oo halka ku gada jalaato ku gada oo dadka caalamka oo dhan ay maaragtay dartii inta u safraan ama haday dalka dalxiis iyo muraadiye kale u tagaan ay isku soo duubaan bay u tagtay video yar bay iskala soo duubtay Soomaali oo dhan baa halka ka soo qaylisay xaajibahana ugu darnaa halkaas uu soo fariistay afku furtay wuxuu ku hadlin ma leh oo hin xataa meesha ku ooyay TV gooy Soomaaliya kabriini waa ku jalaada ku baalkeeniya xaajibahana waxa la socoteen inuu safar ku maqnaa waka isagoo halka ka qaylinay horta eega halka waka isagoo ka qaylinaya oo afka furtay amoodo in maxaa ku yiraahdaa Soomaali barbaagood la soo yiri ama abaarti daba dheer baa dhacday oo reerkiini barlaysay halka qaylada ninka ka dhacaysa waa yaabaysa bal waa kaas ila eeg sida gacanta ku gooday xagga ma isaga xagga wareejinaya meel dara lagu war waxa wata goob jabtay very cheap xabad jalaata anu waxaan garan waayay ninka jalaatadiisu jalaatooyinka naqaan makadbuuta Soomaali afkooda iyo dhagahooda isma maqlo madaxweyne xasan shiiqada maxaa ku haysteen ayaami dhooytu doorashada ku jiray xataa u cudur daari maysan oday tartan ku jiro oo lala ku jiro oo maaragtay madaxweyne kursiga joogay oo uu si kale markuu filada uga saari waayay xoogaa yaa waxa weeye milixidin ku daray oo yiri ciidanka electriya waa dhamaaday maanta leedin madaxweynuhu been buu sheegay war waxa kaambeeyka ku jirta midda kale dadkaas uu madaxweyne u yahay xaajibahan oo miiran wuxuu maanta cunay ma xasuusanayo wuxuu maanta yiri ma xasuusanayo wuxuu maanta dadka kula yaabanaa bari isaga ku arkaysaa xaajibahana safar buu ku maqnaa waa tuu yiri ciyaaraan soo daawanaya qadar baan aadaya isagii baa jalaatadii gabadha wuxuu shalay ku maagayay daraad ku maagayay isaga shalay sameeyay laba xishoone baraha bulshadu soo dhigay halka isagoo xabadii jalaatada ahayd marba sida loo hormarbarayo dhag intuu gabadha ku maagayay oo afka saa loogu galinayo qaracan marka buuqaal ka daawaday dib u qaracbay afka loo galinaya isaga afka loo dhaqan xumo ka weyn ma arag dhaqanka xumo ka weyn ma arag xaajibahana muxuu amiisha ku haystay
muxuu amiisha ku haystay maanta waxa weeye Soomaali gabadhaasi markay ninka isku soo duubtay afka la wada furtay qayla la soo fariistay laba qof xaajibaha maagay arkaysa laba ma ka baqaysan macna ma ka baqaysan midda kale haduu gabadha shalaysa kula yaabayay oo ku maagayay oo ku canaananayay maxaa isaga maanta wixii uu shalay gabadha uga digayay oo uu kula yaabana oo uu ku caayay oo ku canjarafeynay oo ku canaananayay maxaa maanta isaga hogay dhigay bal waa kaas eega إيدي دبهش عيار بقى وجوكتا بيع مستر بكم هالشيء وروحي راجع ركوب بصر السوالف ترى بهش إيدي سوق بالعريه هي جدا دي هورك عكس السعودة معك كل حي يا نجدا ورادر دلعدون بمتهيد عياردون بعتها ورفع نوقل يا باكورة في سوق بني نصيب هش نعلى شيء دقيقة نكاس حاجبها أنا ما هم يا ورنكاس نكي أميشة كلية بنا حبدي جلاتة هاي تركيا كعنت ما هم يا ورنكي قيلدي سأل هالك فدي ويني أو هنت لصو فريستي أو يري ومدي سوالين ماتا وأهرق متون نسبة دمي كبدا جلاتة على سدرتي سوني كاما محايس بدل جلاتة وجلاتة دي يا قام كيبو عياريا إساق عفقا بلوغل لي غرع وينا محايس بدلي dad baa u cudur daaraya arkay komitiyada ku soo qoray isagoo nookin mayo war niku sanaqoon haduu aqoon lahaa arayni ka badiyo ninka haduu aqoon lahaa hadda lugta waa dhaqaajinaya intii tabartiisa waa istiilaya haduu nika aqoon lahaa inta waa sameey lahaa maciil baan qabi lahaa ninkii caanka ahaa oo turkiga ahaa haduu u tagi lahaa oo maxaa ku yiraahdaa ummadoo dhan isku soo duubi jirtay oo faamoska ahaa oo lagu faa'iidi jiray arab miskiin ah oo laba qof ay sanaqo kaligiisa isku duubay xataa aduunka laga ma yaqaano buu yiri igu duuba isaga xataa igu duubay yiri isaga hadda ninka maxaa ku yiraahdaa suuqa oo camiray marka Soomaali waa nooca shalayna waa kan ba ooya gabadhu maxay jaraada isku duubtay gabadhu xaba jaraaka ay ku niisay bal waa kan bal eega shalayna saasuulha oo joogeeda iyo jamaalkeeda u jeedaan ba xaba jalaata taabkay u mareyso hal saac bay nikinaysi markaasuu saa ugu walacsanaya يا أنت دمي يا حبيبتي دمي ديق قرمي ديق كل نقطي ميل درن يرير مسكود لقول الدنيا Soomaali waa taas wixii ay shalay ku caayeen maanta iyaga kaaga horeynaya waa dadka noocaas aweeye dadka baraha bulshada aan ku hayno Soomaali waa taa xaajibaahane maqaaxidu waxay ugu xukuntay gabadha uu shalay u gafay oo ummadda Soomaaliyeed ku hor jaa'ifeeyay inuu xal siiyo waliba ninka anigu garowshiye la'aan baan ku aqaanaa madaxadeed baan ku aqaanaa anoo shiina culaya xalka bixinaya anoo shiina culaya oo oday Soomaaliyeeda oo afkiisa ku hadli kara qof kasto oo khaldaba oo bariiqda afkiisa ku hadli kara xalka bixinaya amiishay ma maqlaysaa ninkaasi waa ku khaldamay wuxuu shalay ku eedeynayna maanta isagii baa ku kacay walaal raali ahaw maqaaxida raali ka ahaw aniga raali iga ahaw xaajibahan raali ka ahaw dadkii Soomaaliyeed shalay kula yaabana raali ka ahaw wax aa samaysay malahayn oo khalad ah ninkii caanka ahaa ee turkiga ahaa ee halka ummadoo dhan isku duubaysay ba xabad salafiya la gashay wixii Soomaali kugula yaabanaydna wakaa ninkii u caansara oo u cuslaamaad sameeynayo marka Soomaali munaafiqnimo ba bahalkoodii marka meheradooda weeye adiga wixii shalay lagu eedeynayay waxba kama jiraan saacada laga bilaabo waka xayubiye waka dhaqay raalika oo xaajibaha raalika ahaw waxa weeye waa si xaq darro ku kufay marka raalika ahaw baan leenahay waxa weeye dadka Soomaaliyeedna saas u bateen wixii shalay ay kugula yaabayeen maanta iyaga ku arkaysaa berina waa ka dareeyeen wax arintaasi cudur daara oo laga bixin kara ma jirto marka maqaaxidii iyadii baa dib isku soo jeesatay huna baasha wal badana hadee baaga muddadeedu badato dhibtaas ay leedahay bil baan maqnaa maanta annagii baa yaa ha israamsatee يا أنا يا ودي يسوق صوب حني هيف يسوق الشني وعشينا عليه وإذا لا وصلنا من القضي مقاحد إن شاء الله تعالى هذا وحكي الضمية وإنوش ناندون تا سمع لله سفر كينا سفر قول يوسف رمالي سفر خير بوها ما شاء الله وصلنا معيستي إلى هاي عبادة مارتي هاي أجيبه دعادي نانا محاكو إلى هذا إلهي عبادة هاي أقبله إذا كان الدعاء إذين أجيبه الحمد لله رب العالمين سفر كوايدك وربحين دونا سفر خير قبوها ما شاء الله
وانا إذي سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad ku nooshahay Yurub iyo Ameerika waxaan kuugu bishaaraynaynaa in application-ka Payc uu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada. waxaad kala soo degi kartaa App Store-ka ama Play Store-ka telefoonkaaga gacanta. haddaba maantaba kaga maaran faylalkii dhaadheeraa ee waqtiga ka lumi jiray ee xawaalada.